maxaad ka taqaanaa kooxda la magac baxday badbaado qaran? Kooxdan waxaa ku midaysan siyaasiyiin Soomaaliyeed oo intooda badan ama gebi ahaantoodba mucaarada. Waxaa gudoomiye u ah gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi. Cabdi Xaashi Cabdulaahi waxa uu ka soo jeedaa maamulka Somaliland. waxa uuna si buuxda uga shaqeeyaa danaha maamulka Somaliland isagoona ka ah dhaqameed u qaabilsan arrimaha koonfurta Soomaaliya. marar badan ayaad baraha bulshada ku aragteen isagoo dhexdhexaadinaya ama fariimo u marinaya cidda markaasi ay u tartamaysa xisbiyada ka jira Somaliland iyo sidoo kale isagoo dhexdhexaadin ka gelaya khilaafaad ka taagan dhinaca Somaliland. Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa gudoomiyihii hore ee midowgii maxaakiimta Soomaaliya waana gudoomiyaha xisbiga lagu magacaabo Himilo Qaran. waxa uu leeyahay laba xaas, ilaahayna waxa uu ka siiyay caruur fara badan. waxay u kala degan yihiin dalalka Turkiga iyo Uganda oo labadiis xaas uu kala dejistay. Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya waana madaxweynihii ka horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana hogaamiyaha dalada ay ku midaysan yihiin jaamacado dhowra oo ku yaala magaalada Muqdisho ay ka mid tahay jaamacadda Simad. waa hal xaasle caruurtiisa waxa ay u degan yihiin dalka Turkiga. Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya waxaana lagu eedeeyaa inuu yahay shakhsigii saxiixay heshiiska muranka geliyay badda Soomaaliya oo ay markaasi ku haysato dalka Kenya. waa ganacsiyo kala duwan ku leh dalalka Kenya iyo sidoo kale dalka geeska ku yaala waana hogaamiyaha xisbiga Wadajir. waa hal xaasle caruurtiisa iyo xaaskiisu waxa ay u degan yihiin dalka UK. Xasan Cali Khayre waa mid ka mid ah milkiilayaasha shirkadda loo yaqaano Somali Oil and Gas. wuxuu ganacsiyo kala duwan ku leeyahay dunida dacaladeeda gaar ahaan dalka deriska ah ee Kenya. waana ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. xaaskiisa iyo caruurtiisu waxa ay u degan yihiin dalka Norway. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa madaxweynaha maamulka Jubbaland waana xubin hore ugu tirsanaa jirtay urur diimeedkii Xisbul Islaam. dadka reer Jubbaland 80% waxa ay ka tirsanayaan cadaalad darro taas oo la xiriirta hab maamuuska iyo qaybinta kuraasta siyaasadeed iyo sidoo kale kuwa shaqaalaha dowladda. caruurtiisa waxa ay u degan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana ku leeyahay ganacsiyo kala duwan. Saciid Cabdullaahi Dani, Cabdulqaadir Cosoble iyo dhammaanba midowga musharaxiinta iyo mucaaradka Soomaaliya dhammaanba caruurtooda iyo xaasaskooda waxa ay u degan yihiin meel ka baxsan magaalada Muqdisho. waxayna maalin walba iyo habeen walba u taagan yihiin sidii ay colaad uga abuuri lahaayeen deegaanka nabdoon ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba koonfurta Soomaaliya iyagoo dagaal kula jira mid siyaasadeed iyo sidoo kale mid mabda'da dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina ku orkaxsanaya cadaalad darro ay markaasi sal iyo raad toona lahayn. waxaan filayaa daawaday in muuqaalkani uu ku furay indhihii ka xirnaa ee ku aadanaa hal dadka ay yihiin siyaasiyiintani doonaya in ay magaalada Muqdisho isu bedesho goob dagaal oo ka caagan nabadda. aad baad ugu mahadsantihiin daawadashadiina. waxaan idinka codsanaynaa muuqaalka inaad sii shargaraysaan isla markaasina gaarsiisaan walaalaha kale ee channelka YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saartaan. aad baad u mahadsantihiin.